السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمن ولا لها مسلمين تملك استدجوكتان وحان يدين رجينيا عافماد iyo cimri dheer iyo cibaadadsan oo ku waartaan insha Allah ta'ala waxaan idinka soo salaamayaa xarunta Al-Hilal ay ku leedahay magaalada Nairobi xaafadda Islii meel kasta joogtaan waxaan idin rajeynayaa caafimaad. xanuunkan madax xanuunka isha ay keento saameynta ay ku yeelato qofka bini aadamka ah markay isha ku dhacdo madaxa ayaa wuxuu noqonayaa culays xanuun joogta ana wuu yeelanayaa dhinac baa xanuunaya mar qaybtaas koro oo maskaxda kora qofka dabka kacaya laleeyo hadii uu daawooyinkan xanuun baabi'iyaasha cunana waxba iskaga ma garanayo xanuunkina waa joogto xanuunka noocaas marka waxa weeyaan sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku daaweyn jiray baan rabaa in idin sheego nabiga sallallahu alayhi wasallam madax xanuunka qofka markuu zaa'id madaxa u xanuuno waa uu toobi jiray toobin buu u sameyn jiray qof kastoo ka sheegto xanuun zaa'id oo madaxa xanuunay lianna waxa weeye neerfayaasha iyo madaxii wixii xasidkii siyaabo kale oo xanuun kalena waa dhici kartaa inuu qofka markaas madaxa u xanuunjinay laakiin xijaamadu waxa weeyaan waa lambar 1 qofka khaasatan xanuunada ruuxiga ah qabo madaxa marka qaab loo toobaa jirto waxaa laga toobayaa labadaas meelood hore halka dhexe labada qadaadka meesha u dambayso ayaa laga toobayaa qof khabiir ku ah ayaana toobaya madaxa qodobka labaad oo waxa weeyaan qofka xanuunka noocaas qabo uu isku daaweynaya ama lagu daaweynayaba qofka waxa la qabanayaa madaxiisa ayaa la qabanayaa gacantaada midigta ah baad madaxa ka saaraysa waxaad ku akhrinaysaa waxa weeyaan بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وحتكو علينيسا سدح جير ذلك تخفيف من ربكم ورحمة بعدكو آخرينيسا وحتكو آخرينيسا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بعد أيضا كعل علينيسا سدح جير وحتكو آخرينيسا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين تاسار مركو waxaad ku akhrinaysaa iyadana 3 jeer waxaad ku akhrinaysaa kaaf ha ya ayn sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا مريم سورة مريم آيات كوبات إلا إيو آيات سدحات باتكو أخرينيسا سورة مريم وحاتكو أخرينيسا قفك مدى حنونك الزائد كأقابو أما عديقا بأسكو أخريب لكن قابك السيقظة علومة أيوصو قوريين إن لغو أخريا واي إن لغو أخريا وإذا سألك هاتكو أخرينيسا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سورة البقرة وحكرتكم آخر نساء وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم آياتكم آخر نساء وحكرتكم آخر نساء qofka madaxa sida u xanuunayo waad u kala gogoyn kartaa maalin baqayb waad u akhrin kartaa ama waad akhrisan kartaa hadaa taqaano alam tara ila rabbika kayfa madda adh-dhilla walau sha'a laj'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila waxa ku akhrinaysaa hamim ayn sin qaf suratu ash-shura آيات كوبات آيات اللبات واتكو آخر نيسا وحاكرا سيدو كالي
culimmadu ay soo guurinayaan in ay fiican tahay ayaduna in loo qoro ayadahan qofka inta loo qoro weel nadiif ah saxan inta loogu qoro inuu cabo ku qabaysto ayaduna waxa weeyaan way wanaagsan tahay waa wax tajrubo lagu soo sameeyay marka madax xanuunka noocaas sidan hadii la sameeyo isla markaasna daawadan qofka uu habeenkii ku qabaysto midana subaxdii marsado korka jirka oo dhan uu mariyo markuu shaqada aadayo qofkaasi waxa weeye xanuunkaas madax xanuunka noocaas oo zaa'idka ah oo xanuunada ruuxiga ay keenaan ilaahay idinkiisa uu ka caafimaadaya qofka hadduu madaxa xanuuno wax uu qabsan kara ma laha meesha dhan ee waxa weeyaan xagga wax qabsashada xibnaha bini aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nasiiyey midba midda kale way ka qaalisan tahay laakiin jirka intiisa kale dhan waxaa ka muhiimsan waa madaxa iyo maskaxda iyo intaan maaragtay qofka maskaxdiisa uu ka fikirayo meesha xibnaha ugu qaalisan baa ku jira hadduu xanuuno madaxa qofkaasi wax u qabsan kara male hadduu laakiin madaxiisa hadiya hadda aayadahan oo dhan xasilooni bay ka hadlayaan iyo tafsiirkooda inta badan qofka inuu dego bay ka hadlayaan waana lagu tufaya qofka marka maskaxdiisa way degaysaa toobinka iyo aayadahan marka la isugu daro maskaxdiisa tartiib bay u degaysaa hadduu hurdo la-aan ahaan jiray hurduu helayaa ilaahay idinkiisa hadduu wareer ku jiray oo qofka yani maqana jooga wax la yiraahdo uu ahaan jiray waa degayaa insha allahu tacaala wuuna xasilaya moogaanina marka ayadahan insha allah ayagoo qoraal ana waan idiin soo dhigi doonaa hadduu ilaah yiraahdo la socda marka barnaamijyada qaabka la isaga daaweeyo xanuunada ruuxiga ah sida ugu fiican oo iskaga daaweynaysaan youtube-ka soo raaca subscribe-na saarta insha allah barnaamijkaasi waxaan doonaynaa inaan idiin laba laabno oon idiin maaragtahay soo badino kilibyada maadaama aan aragnay dad badan inay u baahan yihiin xanuunkoodana aysan garanaynin laakiin markii ay arkaan annagoo sharaxayno xanuunadii inay ku baraarugaan xanuunkooda ay gartaan nooca uu yahay inay gartaan meesha laga hayo waan aragnay dumar badan gabdho badan iyo rag badan oo isbitaallo un weligood ka daba wareegi jiray markay kilibyada noocaana daawadaan ba waxay arkayaan cilada haysatayba inay midaan tahay sida awgeed bay xarunta alhilaal la soo xiriirayaan waana ilaahay subxaanahu watacaala ayaana ku caafinaya ilaahay idinkiisa aad baad umahadsantihiin wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh bulshooy bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayo mid cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaara lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkaygi baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex daraya xaruntuna waxay idin keentay daawooyinka baabasiirka gaaska daawada kaliyaha nadiifisa daawada infekshanka tan calool bixinta daawada samboorka tan sokorta caado wareerka umusibiyaanka iyo dabaysha neerfaha alerjiga dhiigkarka iyo daawada xoojinta raganimada rumatiisanka daawada caloosha lagu yareeyo iyo murqadhisida daawada yiridka daawada burseelka iyo guryaanka waxaad sidoo kale ka helaysaan biyaha samsamka iyo tinka shifaa'un liruuhi wa hablil matin bulshooy bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayo oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkaygi baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex daraya haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore alhilaal habol online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiifa bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale alhilaal habol online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweynay alhilaal habol online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kaliya xanuunka
masaaj toobin waafaqsan sunnada ilarjiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta alhilaal habol online waxay kaa daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaad daawadiisana lagu caafimaaday haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta alhilaal habol online oo ku taala xaafadda Islii Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street wixii faafayntaasi dheer kala xiriir telefoon lambarka eber 7 eber 5 777 4 7 hal oo laga heli karo Dr. Axmed Cilaad